halkani waa magaalada Hargeysa waxa ka muuqda burburkii ay u geysteen ciidamadii dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya sanadku waa 1991 dadku waa qaxooti waxay dib uga soo laabanayaan xeryaha qaxootiga ee bariga Itoobiya dhulku waa wada burbursan yahay hadday tahay guryihii shacabka iyo kuwii dawladaba wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay ka mid tahay wasaaradaha lafdhabarta waa dhismaha iyo qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliland taniya sanadkii 1991 waxay u tafaxaydatay sidii ay qayb uga qaadan lahayd dib u yabyabka iyo dib u dhiska dalka waxa isla sanadkaasi la hawlgeliyay dhowr iyo 20 qof ee ugu horeeyay ee ah shaqaalaha wasaaraddaasi kuwaasi oo qashinkii iyo gudaafadii ka sifeeyay dhismayaasha wasaaradda oo intooda badan ay dad shacabihii deganaayeen waqtigaasi oo wasiirkii ugu horeeyay ee wasaaradda loo soo magacaabayna uu ahaa Ismaaciil Hurre Buuba isla sanadkii 1993 waxa wasaaradda maaliyadda lagu soo kordhiyay shaqaale kale oo aqoon-yahan ah oo laga soo xulay gobollada dalka waxaana shaqaalahaasi ay ku hawlgaleen si mutadawacnimo oo nafurida waayo mushahar ma jirin stationary ma jirin gaadiidna ma jirin iyaga ayaa jeebkooda ka soo iibsan jiray galmaanta iyo waraaqaha ay ku shaqayn doonaan waxaana lagu kala qoray kastamada Hargeysa Berbera Kalabayd iyo Saylac iyadoo xaaladda waqtigaasi dalka ku jiray in badan oo idin ka mid ah qiyaasi kartaan waayo meel kasta waxa joogay maleeshiyo hubaysan duruufuhuna way adkaayeen raggii waaga ka soo hawlgalay wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa ka mid ahaa Maxamed Axmed Weyrax agaasimaha waaxda shaqaalaha ee waqtigan waxaanu ka waramay waayihii iyo marxaladii ay soo martay wasaaradda horumarinta maaliyaddu anigu waxaan shaqada bilaabay 4tii bishii 7 93 markii Allah u naxariistay Maxamed Ibraahim madaxweynaha laga soo ka soo noqday xilliga waxa wasiir ka ahaa wasaaradda Cabdullaahi Maxamed Ducaale berberaan shaqada ka bilownay waxaan ahayn 25 qof 25 sarkaal oo gobolada oo dhan ka socday waxa la oran jiray markaa shaqaalaha midaysan Hargeysa way joogeen shaqaale ka sii shaqeynayay oo macnaha ilaa 91kii ilaa 93kii wasaaradda way shaqeynaysay laakiin markii ugu horeysay ee waxay ahayd la hirgeliyay in cashuurta dawladda inta la qaado baan la dhigay juwankii ugu horeeyay expora aniga taray 4tii bishii 7 93 sidoo kale juwankii ugu horeeyay ee impora alaab soo degtay doonyaha wax keeni jiray doonyaha sawaariiqda loo yaqaan ayaa shamlaanta iyo waxay keeni jiray wax aad buskud iyo waxay keeni jiray yamanta keeni jireen juwankii ugu horeeyay Cabdirasaaq in ciyaale Cabdirasaaq jaamacad in la oran jiray aan filaya Cabdirasaaq jaamacad ayaa isna jaray alaabta soo degtay isna wax ka canshuuray 25 shaqaalaha midaysan bay ahaayeen waxaan ku wada shaqeynay shaqo wada jir ah hawsha waxa dhoofayna waa la wada qaban jiray waxa soo degayna waa la wada qaban jiray markaa shaqada ay bilaabatay dadka alaabta sita waxa la weydiin jiray imisaad ugu sheegtay inaad bixiso waqti waxay laga soo doogtay dagaalkii sokeeye dagaalkii waxaan leeyahay wadankan lagu xoreynayay waxay ahayd wadan markaa iska macnaha jabaada iyo wax ka samaysnaayeen oo markaa hanaankii dawladnimo lagu soo magaranaysa lagu soo wareejinayay buu ahaa dadna waxa markaa taariifadii waxa ma jirin markaa dadka waxaan weydiin jirnay wuxuu ogolyahay markaa qaadi jirnay waxa markaa customs controller ahaa Xasan Mbisi inka haystay markaa customka wuxuu ahaa Xasan Mbisi ninka loo yaqaan imika maarayaha haamaha ayaa markaa haystay markii dadku ay la qabsadeen ayaa taariifad bilow ah la sameeyay taariifada markaa lagu shaqeyn jiray waxyaabaha la yaab keenay waxay ahayd mutadawacnimada dadku ay ku shaqeynayeen qalinka qofku soo iibsanayay waraaqahan uu soo iibsanayay entry formka aan cashuurta ku qaadno banka ma ahayn baan rasmi ah oo ma lahayn waxyaabahan inta imika documentigan loo baahan yahay imika
general state kan iyo waxan maartay iyo sleep bank kan iyo wax ma jirin waxan juwanka anigu aan lacagta ku jaray entry form ka aan lacagta ku gooyay ee wax ku canshuuray dhabarkiisa la ii saxiixay aan ka qabtay heerkaas soo maray stage canshuurtii markii dambe way bilaabatay alxamdulillaah rabbil caalamiin 94 bishii 2 waxaa la ii soo magacaabay agaasimaha kumeel gaarka ah ee waaxda kastamada halkan iminka aan fadhiyo xaas leeyahay xaasas baa deganaa xaasaskii waan ka rarnay xafiisyadii dusha loo soo baxay xafiiska wasiirku markii hore ahaa dhabararto ahaa berbera ahaa waan soo dejinay halkan la keenay kii agaasimka halkan la keenay agaasimihii guud uu soo degay waa 94 kii aakhirkiisii buu shaqada xafiiska si wanaagsan uga hirgashay xarunta مثلا تصالحان 95 كي بشي سدحات بان waxaan tagay barbaashi sayla maamula waxa ka Abdullahi Ahmed Abdullahi Omar baka maamul waxa ka socday dagaal baa ka socday jabhada ka dagaalamay gobolkaas sal jabhada markaa ka dagaalamay maalin habeenka aan galnay gaara lagu gubay kulanka Cabdi Afuur iyadoo ay sidaa tahay bay shaqeynayeen customiska sayla oo lacag qabanayeen dawladana loo xareynayay macnaha yani hawlaha ay soo mareen shaqooyinka customka ay soo mareen kala baydhko kale iyadoo xaalado kastoo kala duwan ay ka jireen oo dadka xitaa aanu garanaysaa ay sufur furneen ee haddana la shaqeynayay oo si wanaagsan ay cashuurta u soconaysay wasaaradda maaliyaddu 30 sano waxay soo martay waaye kala gedisan oo waqti waliba waayihiisa watay waqtigaasi la bilaabay wasaaradda maaliyaddu shaqaaluhu waxay ahaayeen kuwo ay ka goonayd in ay dalkooda u shaqeeyaan agaasima ku-xigeenka cashuuraha beriga khadar maxamed maxamuud iyo siciid cabdi cilmi iyo weliba daa'uud nuur waxay ahaayeen shaqaalihii lagu bilaabay cashuuraha beriga waxay ka warrameen waqtigaasi sida ay ku bilaabeen iyo duruufihii ay la kulmeen lacagtii ugu horreysay cashuuro beri la qabtay 1993 bishii sagaalaad 13 taasaas dakhli ugu horreysay la qabto ninka halkan fadhiya oo la yiraahdo Siciid Cabdi Cilmi wuxuu ahaa qasnajigii ugu horeeyay ee waaxda cashuuraha beriga waxana lagu qoray 6 qof baan ahay Allah yarxamo 3 kamidii way dhinteen marka waa la kala dhuftay waaxdii dakhliga iyo waaxdii kastamada markii dambe ayaa la kala bixiyay aniga marka waxa lagu qoray waaxdii cashuuraha beriga lagu qoray juwankii ugu horeeyay ee aan qabanno wuxuu ahaa plate number 20 baabuur baan ka qabanay plate numberka iyo buugoodi min 60,000 oo shilin ninkii ugu horeeyay qabtana waa kan booha warqadii ugu horeysay ee amarka lagu bixiyay la saxayna anigu wasaaraddu waa bay ka baqatay marka taariifadooda ana saxaa amarka dusha ka saxaa warqaba lacagtan iyo dadka plate numberka iyo buugan siinayna saasaan ku qabtay isaguna uu qabtay dabeedna markay arkeen dawladdeena oo lacagtii qabanayno ayaa agaasimuhu gudub u soo saxay warqadiina amarkiina dabeedna wasiirka looga soo saxay buuga aan ku qabanay cashuurtii ugu horeysay waxaan ka bari gabadhan bari ku ogaa oo leeyahay kastam cashuuraha laga sameeyo airport ku cashuur oo farjiboor markii ay ka gooysay jabadii ka boobtay lacagtii oo intii kala haysay ayaa ka soo qaatay waa bahja marka laba jiwa ka jaray boolaata kura dhixi baan ku qaaday baaburkii ayaa waxay ninka la oran jiray dab oo haaga isma gudaha wasaaradda maaliyadda oo buug ya shaabad sida oo beriga hore lagu yiri midka cashuuraha furi karaaniga khadar lagu yiri dabeedna wuxuu yiri kan iska keeno kan ku jir ninka hebelo ku imanaya ciise loo jiro dhintay isaga jaagareenaya toosbagiga u geey sidaas oo ku wadnay heedaadka loogu badan wuxuu qabsi jiray hadda duhurkan hawlka kale ugu lugay jiray TFG-ga xidho ilaa banka markaa lagu geeyno ay banku cid kale lacag ka qabtaan waa keligii uu kaliya anigu kaliya adeero nagada wadna kadeedo wadna dhibto baan dhul baa halka ku fadhiyaan ilaa 12 tagay waa lugeynaya halkaas kastam kan lugeynaya mar intaas oo lacag haysanaa horta inta yar oo ugu rida meesha cashuur anaga mushahar lama siiyo
ما waxaa ka mid ahayd maalmo laga boobay xafiiska lixda lagu soo garay laga boobay lacagti oo ciidamo iga boobay adigu waxaan loo rafaadaba bilba bishada bay soo kordhisay cashuurta waa badnay biilashi baan ku daranay waa ka sii kordhinay ganacsadii baan ku daranay waa ka sii kordhinay waxaan ku daranay muxuu ahaa cashuurta shaqaalaha waxaan ku daranay cashuurta daaraha liisamadii sidaas oo sii wadnaa maalinba maalinta ka dambaysa ayuun bay saruusi socotay iyadoo dhibaatooyinada iska dhaceen oo kolley xaraafiir badan iska jirtay markii dambana anugu khaasatan waxaan ka furay cashuura beriga burco gobolka togdheer gaar ahaan waaxda cashuuraha beriga iyaan anigu mataqaana wax weyn ka soo qabtay xuquuqaana aanu sii hay waaxaha kale horumarinta maaliyaddana waxaa kamid ah ragga wax ka soo qabtay xagga maamulka daahir salaan yuusuf kastamadana ninkii soo dhisay ee bayska u ahaa nin sacad la odhan jiray oo dhintay ayuu ahaa markii ay gaadhay 93 ayaa nin cawil xaaji cumar la odhan jiray yaa wasiirka dakhliga laga dhigay wasiirkii dakhliga ee cawil xaaji cumar wuxuu yiri deedna war meesha cashuuraha beriga yaanu bilownay wuxuu arrintaasa jirto oo dhibaato ka jirtaay de arrintaasi wax igala qabo waayahay baa loo deedna wuxuu yiri maamulo cashuuraha beriga yaan ku magacaabaya halka kastabada oo de dhulka wasaaradda maaliyadda iyo xafiisyada dawladda iska yar wada cid lahaayeen mid kamid ah halkaas la joogo halkii baan deedna yaan isku raacnay halkaas markaa aanu cashuuraha beriga yaanu ka soo bilownay marka deedna waxaanu niri sidee cashuurihii beriga u dhaqaaqayaan wixii waanu samaynay de wixii shuruucdii wixii waanu foom garayno waan soo waxayno de waa la soo xisay madaxtooyada markaas saxiixun bay u baahan yihiin de waxa ciidan baa loo baahan yahay baan ciidan deedna waxaanu niri war qolooyinkani bilayska 10 nin oo bilaysa oo de ragga laga soo doortaa bilayska dhan hala noo keeno 10 nin baa la noo keeno raggii saraakiishii ugu horreeyay markii dambe wada madax noqday wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxa ay marba marka ka dambaysa ku tallaabsanaysay horumar waxaana jirtay in la mideeyay cashuurihii dalka oo dhan taasi oo wasaaradda maaliyadda oo kalihii ay noqotay cidda kaliya ee cashuur qaadi karta iyada oo dawladaha hoosena sidoo kale la siinayo percentage-ka ay xaq u leeyihiin xildhibaan xasan xuseen codyare oo agaasimo guud ka soo noqday wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa ka mid ahaa raggii hirgeliyey midaynta cashuuraha anigu waxaan doonayay in wasiirka aan gacan siiyo waddanka waa la soo galay nidaamkii horena uu burburay nidaam dambana lama samayno laakiin ninba wal wuxuu bilaabay halkuu lacag ka heliyay ugu dhow nin walba isbaara dhigtay dadku waa si halkaas u maraya dawladdana cashuur soo hoyata way yartahay daraasad baa markaa bilaabay burco ilaa boora ee daraasad bilaabay waxaan ogaaday ama horena aan u shanqad u hayay dalku inuu fuudo ku jiro oo gaangisba bilaabmeen oo xoolaha xitaa inta dawladda loogu talagalay intaa xitaa rag baa ku talagalay inay musuqmaasuqana meel ku shubtaan oo rasiido gaara baa jiray oo iyagu ay samaysteen marka dalkuba wuxuu ku jiraaba halis oo inta yar oo cigaalka warwarayaba rag baa ku maqan dabeedna daraasadii baan soo sameeyay waxaan sameeyay buuggana sameeyay 3 bilood aan ku soo saaray ayaan ku soo saaray waxaan ka bilaabay degmo kastoon tago dakhliga soo gala meelaha uu ka soo galo halka lagu qarash gareeyo ayaa soo xisaab xid baan degmo walba ka sameeyay markay caan ka ahayd barnaamijkii buuggan markaan soo saaray gees baa qaaday maxamed xaaji ibraahim madaxweynihii u geeyey
madaxweynihii 2 cisho ka bacdi ayuu noo yeedhay aniga geystay dibadna adoo hawshii waxaan samaynay arrimo badan baan markaa samaynay horta buuggani wuxuu tilmaamayaa midayntii cashuuraha dawladaha hoose iyo dawladda dhexe ayuu tilmaamayaa waa buugga laga soo bilaabay xisaab xidhkoodii ilaa wixii waxaan ku koobnay inaan wix control oo dhan laabno oo entry point-ka meesha la yidhaaha waa dekeda berbera cashuurta halkaa lagu qaado markaa waxaan xisaabiyey maxay heli jireen waxay heli jireen markaan xisaabiyey ayaan madaxweynadii customka ee xaqa loo in lagu daro ahayd baan 12% ayay u noqotay markaa waxaa lagu cashuurayaa wajaale ama kala bayd berbera boorama saylac adu entry point-ka meesha la yidhaha laga soo geliyay dalka unba cashuurtii aan dhignay miisaaniyaddu ma badnayn 99kii 57,255 bay ahayd 99kii ya dakhliga soo xirwadayna wuxuu ahaa hoos buu u dhacay markaan 2000kii 55,347 buu ahaa 012 milyan markaa waxa farqi deficit hoos u dhaca 1,908,059,000 laakiin waxaan ka tagnay oo meesha ku jira sarifku intuu ahaa markaa sarifku wuxuu ahaa 2,500 2000 waxa weeyaan 75 milyan ayuu noqdo waxaan bedelay 57kii markaas 17,500,000 ayaa farqi ah labada sanadood u dhaxeeya kororka yani sabab uu kordhiyay laakiin haddana waxaanu turaynay dadka mar qura laguma kordhin jirin waxa loo eegi jiray step by step koritaanka ayaa loo eegi jiray marka cashuurtu magac un bay ahayd base un bay ahayd oo aan ka bilaabaynay laakiin cashuurtii dhabta ahayd lama qaadi jirin agaasimaha waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda maaliyadda ee hadda yaasiin barre ducaale ayaa isaguna ka warramaya heerarkii kala duwanaa ee miisaaniyaddu soo martay iyo qaababka ay miisaaniyadda qudheedu ay marto miisaaniyadda diyaarinteedu waxay martaa marxalado kala duwan ugu horeyn waxay ka bilaabantaa waa laba weji wejiga koowaad waxa weeyaan waa wejiga siyaasadda miisaaniyadda waxa weeyaan waxa la soo saaraa maxaan ku dhahdaa book la yiraahdo budget outlook paper oo macnihiisu yahay xaashida guud marka miisaaniyadda waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa wuxuu ku saabsan yahay sanadkii hore miisaaniyadiisii iyo sida dee loo isticmaalay iyo sanadkan 3 biloodkan maxaan ku dhahdaa la joogo isticmaalkiisii iyo isbarbardhiga 3 bilood ee sanadkan iyo 3 bilood ee sanadkii ka horeeyay ayadoo la eegayo maxaan ku dhahdaa wax la yiraahdo economic parameters oo ah maxaan ku dhahdaa maaragtay sida xagga shaqala laantu heerka ay marayso maxaan ku dhahdaa GDP-ga maxaan ku dhahdaa exchange-ka daatadana maxaan ku dhahdaa maaragtay wax baa noo qaabilsan la yiraahdo microeconomic and statistics waxdan dhaqaalaha iyo tirakoobka daatadana wax laga soo qaadaa ma garanaysaa wasaaradda qorsheynta bangiga dhexe wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada guud ahaan marka maxaan ku dhahdaa maaragtay daatadaasi ay dhammaystiranto ayaa waxa la soo saaraa dee buugga waxaa loo gudbiyaa guddiga maxaan ku dhahdaa siyaasadda miisaaniyadda ka bacdina marka maxaan ku dhahdaa maaragtay guddiga oo hormuud yahay wasiirka maaliyadda ayaa maxaan ku dhahdaa ma garanaysaa waxay ka diyaariyaan waxyaalaha sanadka soo socda miisaaniyadda priority-ga la siinayo ka bacdina maxaan ku dhahdaa maaragtay waxa la jaangooyaa
dakhliga aynu filayno sanadka soo socda ee aynu miisaaniyadiisa diyaarinayno iyo kharashka aynu geli doono waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa marba dee marxaladdu sida wadanku dee maaragtay dhaqaalihiisa iyo dadkiisa iyo maxaan ku dhahdaa ma garanaysaa xaaladihiisu isu bedelayaan ayay dee miisaaniyadduna maxaan ku dhahdaa dee maaragtay isula bedelaysa haddaan ka soo qaado maxaan ku dhahdaa matalan sanadkii maxaan 2001 miisaaniyaddu waxay ahayd 78 bilyan 78 bilyan kii ku xigay maxaan ku dhahdaa 2002 oo kale waxay ahayd 88 bay ahayd kii ku xigay 2003 101 bilyan bay ahayd 2004 kii waxay ahayd 144 bilyan bay ahayd 2005 kii waxay ahayd 148 2006 kii 164 2007 kii waxay ahayd 2012 marka waad arkaysaa sanadba sanadka ka dambeeya siday isu bedelaysay ilaa maxaan ku dhahdaa ma garanaysaa 2019 kii oo kale ama 2018 kii oo kale haddaynu soo qaadno 1.687 bilyan bay ahayd trillion 1.86 trillion bay ahayd 2019 kii oo kale waxay ahayd iyaduna 1.8 trillion bay ahayd halka 2020na ay ka noqotay 2 trillion 1.1 wasaaradda maaliyaddu waxa ay maamusha way gacanta ku haysaa dhaqaalaha dawladda iyo ururinta cashuuraha sidoo kale wasaaraddu waxay mas'uul ka tahay habaynta dejinta iyo diyaarinta maamulka miisaaniyadda agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda maxamed cabdi gurxan ayaa sharaxaya hababka loo maamulo ama loo maareeyo miisaaniyadda dalka miisaaniyadda marka laga hadlayo waxa sal u ah dakhliga la soo saarayo haddii kobaca dhaqaalaha laga hadlayo waxa saldhig u ah guud ahaan dakhli soo saarka iyo siyaasadaha kale ee lagu horumarinayo dhaqaalaha guud ee dalka marka qodobka dakhliga oo kale hawlaha aanu ku mashquulsanahay amba hawl socodsiinta wasaaradda waxa kamid ah dakhli ururinta sidaynu ogsoonahay waxa aynu ku jirnaa bishii shanaad ee sanadka 2021 sanadkaas oo sanad miisaaniyadeedkiisu uu runtii ay tahay miisaaniyad ka kooban ilaa 2.8 trillion Somaliland shilling ah oo ugu badnaan boqolkiiba 23 ka sareysa miisaaniyaddii labadii sano ee ugu dambeysay oo u dhigmi karta ilaa dhowr iyo 60 milyan oo dollar ka sareysa ama ka sareysa labadii sano ee ugu dambeeyay kor loo qaaday taamicnaheedu waxa weeyaan wasaaradda in aanu fadhi badan u oolin hawl badan ay u taalo sidii loo soo saari lahaa dakhliga miisaaniyadda 2021 waxa kale oo ogsoon tihiin nidaamkan maamulka miisaaniyadda si aynu u fudaydino isna systemka hana qaaday ee dawladdu ay leedahay ee loo yaqaano ifmiska inuu isaguna guud ahaan dalka oo dhan maanta uu si fiican uga shaqeynayo kaasi wuxuu soo kordhiyay in si fiican miisaaniyadda loo maamulo xagga waqtiga iyo xagga koska wuxuu soo kordhiyay daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka wuxuu soo kordhiyay beekhaaminta miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dawladda isaguna guud ahaan dalka oo dhan systemkaasi waa uu ka shaqeynayaa halkii markii hore dawladda dhexe oo qaybo kamid aan ugu nimid maanta dawladda xafiisyadeeda oo dhan buu ka howlgalaa hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda oo aan hore uga jiri jirin baynu gaarsiinay dawladaha hoose ayaynu sidoo kale iyadana aynu ka hirgelinay mashaariicda adduunku inaga kaalmeeyo ee JPLG-ga kuwan mashaariicda World Bank iyo mashaariicaha kala duwan dhamaantood systemkaas aynu ku isticmaalnaa waana markii ugu horeysay ee banka adduunka iyo hay'adaha kaalmeeya hay'adaha inaga taageera mashaariicda horumarintu ay isticmaalaan
habka maamulka maaliyadda ee dowladda iyo systemkeeda ifmiska la yidhaahdo iyo guud ahaan hanaanka kharash bixinta ee dowladda. labadii sano ee ugu dambeeyey hay-adaha caalamigii waxay baadhis iyo hubsiime ay ku sameeyeen oo hanti dhowro guud ay usoo dirsadeen sida uu u shaqaynayo systemka dowladda ee maalkii ay naga kaalmeeyeen lagu maamulay. labada sanaba report baa ka soo baxay runtii aqoonsi maaliyadeed oo caalamiya aynu ku helnay oo standardka IMF-ta iyo World Bank-ka iyo wadamadan horumaray ay standardka ay doonayeen waafaqsan. taasina runtii waa guul kale oo runtii u soo hoyatay xagga aqoonsiga maaliyadda oo hordhac u ah amba u horseedi doonta mustaqbalka aqoonsi siyaasiya. inkasta oo wasaaradda horumarinta maaliyaddu soo martay oo ay ku soo shaqaysay duruufo adag sanadihii ugu dambeeyey, waxay ku shaqaynaysay si xawliya isla markaana casri ah oo la jaan qaadaysa xeerarka iyo tiknoolajiyada casriga ah. wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire oo ah wasiirkii 17aad ee soo mara wasaaradda maaliyadda ayaa ka warramay siyaasadda wasaaradda maaliyadda iyo sida ay u shaqayso. shaqada wasaaradda haddaan wax yar ka yara taabto waxay ka kooban tahay dejinta siyaasadda maamulka maaliyadda, diyaarinta miisaaniyadda, ururinta cashuurta iyo maareynta kharashyada. tiirarka ugu waaweyn waa afartaas. waxaa soo raaca baaritaanka waxda baaritaanka amba auditka la yidhaahdo iyo waxda iibka, intaasaa soo raacda iyo waxyaha kale. laakiin waxyaha kale waa waxay kaabaan afartaa tiiro waaweyn. siyaasadaheeda waxaa ka mid a horta marka hore in inaynu isku filaysiino miisaaniyad, inay iskoostaan miisaaniyaddeena iyo kharashkeena oo aynaan gelin kharash aan miisaaniyaddeena ku jirin. waxaa kaloo siyaasadaheeda ka mid a inaynu ilaalino sicir bararka oo wax allaaliyo wixii sicir barar inoo keenaya ka dhalanaya maamulka maaliyadda in laga ilaaliyo, sicirka la fadhiisiiyo. sababla socotaan arrinka waa ku guulaysan. bartamihii sanadkii 2018 sicir bararku wuxuu marayay 8%. wuxuu ahaa 2.5 buu ahaa. aad baan noo soo dejinay. waxaa kaloo runtii aanu bangiga dhexe kala shaqaynaa. bangiga dhexaana runtii inta badan shaqada qabta in la fadhiisiyo sixirka shilinka Somaliland. kaalirtigiisa waa ku guulaysan oo 2018 mar buu gaaray 10,700. iminka wuxuu ku heehaabaa waa 8,300 ilaa 8,500. marka runtii kaana waa ku guulaysan inaanu fadhiisino saacadta. siyaasaddeena waxaa ka mid oo kale inaynu gaadhno cashuur bixiyayaasha oo dhan oo qof walba sharcigu ku waajibiyay cashuurba aanu gaadhno siduu u bixin lahaa aananu u fududayno. haastan ganacsiyada waaweyn waxaanu qabanay xaflado aanu ku abaal marinayno dadka cashuur wanaagga muujiyinta kalena aanu ku dhiirigelinayno. marka siyaasaddeedu waxa weeye runtii waxaan u aragnaa cashuur bixiyaha inuu yahay loo adeegay. annagu waxaanu soo nahay adeegayaal, anuu booliis ma nihin, adeegayaal baanu nahay. marka waxaa siyaasaddeeda ka mid a in aanu tababaro shaqaalaha iyaga runtii aad iyo aadna waanu tababaray sidii adeeg hufan oo wanaagsan ay ugu samayn lahaayeen cashuur bixiyaha. waxaanu kaloo u samaynaa cashuur bixiyo hadduu cabasho qabo habraac uu cabashadiisa kusoo gudbin karo ilaa iyo uu tegi karo maxkamad yaraa noo sameyno si u gaara oo maxkamaddu markaa haddii na kala saarto na kala xukunto. haddii cashuurtaanu saaree tahay mid ka badan tii xaq loogu lahaana naloo sheego. haddii cashuurtu tahay mid u qalantaan dakhligiisana maxaa isaga dee loo sheego deena saa lagu dhameeyo. shaqo kasta oo loo qabanaya waxay u baahan tahay in hareeraha laga joogsado. sidaasi daraaddeed ciidanka ilaalada cashuuraha ayaa kaalintooda ka qaata ilaalinta cashuuraha iyo habsami socodka shaqada. wasaaradda maaliyadda taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha Kolonel Cismaan ayaa ka hadlay shaqada ciidankiisa. hawsha qaranka aan u haynaa waa hawsha ugu muhiimsan waa ilaalinta
cashuuraha qaybta ilaalinta cashuuraha haddaad maqasho waa dabagalka dakhliga ilaalinta meel kastoo joogaan cashuuraha beriga la shaqaynta iyo kastamada intaba la shaqayntooda dhammaan gobolada Soomaaliland oo dhan bay ciidanka ilaalinta cashuuru joogaan waana kuwa wax soo saarka dakhliga ee dabagala soo qabashada kontrabanka waxa kale ku darsadaan muqaddaraadka waxyaabaha muhiimka oo dhan ama dalka khalkhal ku ridi kara waa kuwa ciidanka ugu muhiimsan ee qaban kara waxaan had iyo jeer aan joogtaynaa ilaalinta cashuuraha dabagalka ama soo qabashada gaadiidka kontrabanka diida cashuur diidka waxaan ku raadayay ka xuduudaha ka soo talaabaya ee kontraband dalka ku soo galaya ka ganacsatada ay ama cashuur diidaya isagoo lagu leeyahay mataal macaashka lagu leeyahay ama cashuurta GTS ka lagu leeyahay ama customer haato wax kasta oo meel kasta cashuur ka socotaba waxa ka ciidanka ilaalinta cashuuraha ayaa ka shaqeeya waana doorka ugu muhiimsan ay dawladda ugu jiraan waa wax qabadka cashuuraha ilaalinta cashuuraha kontrabanka cashuuraha ka soo galaya xuduudaha markaan qabano waxaan saaraa cashuur 100% aan ganaaxna yaan qabanaa ayaa laga shubaa 100% ganaaxna waa lagu dhiftaa si aanu qofka hadeed culayska u dareeno oo meel kale ugu beydin oo kastamada u soo maro mar labaad hadii lagu qabto maxkamadda sharciga la horgeynaya marka hore digniin la isku daraya iyo ganaaxa iyo cashuur ka shubista la isku daraya inaan ku noqon mar labaad haduu ku noqdo waxaan geynaa wadada sharciga u marnaa maxkamadan geynaa wasaaradda maaliyaddu waxa ay haysaa shaqo aad u ballaaran taasi oo ka howlgasho guud ahaan gobolada Somaliland iyadoo ku howlan ururinta cashuuraha kala duwan ee dalka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Cabdi Gurxan ayaa ka warramay sida ay u shaqeyso wasaaradda horumarinta maaliyaddu sideen ogsoonahay wasaaradda horumarinta maaliyaddu qaranka waxay ugu xil saaran tahay in ay diyaariso dhaqaalaha guud ee dalka lagu kobcinayo iyo adduunka iyo maalka lagu maamulayo guud ahaan hawlaha kala duwan ee dawladda hawlaha aanu ku mashquulsanahay amba hawl socodsiinta wasaaradda waxa kamid ah dakhli ururinta si aanu u soo saaro waxaanu guud ahaan dib u habeyn ku sameeynay labada waaxood ee dakhli soo saarka qaab dhismeedkooda iyo habraacyadooda iyo systemskooda waxaanu hirgelinay noocan cashuurta cusub ee la yiraahdo GST-ga oo xeerka dakhliga uu jideeyay taasoo markii ugu horeysay intay Soomaaliland jirtay aynu ku dhaqan gelinay qodobka sharci aynu ka dhaqan gelinay isla markaana ku dhaqan gelinay adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada korontada iyo adeegyada warbaahinta TV-yada iyo qaybaha kala duwan cashuurtaasoo runtii wadanka dakhli waara oo la isku halayn karo suurtagal ka dhigi doonta inay miisaaniyadeedu noqoto miisaaniyad la isku halayn karo waxaanu sidoo kale aanu bilownay marka la doonayo dakhli waara inay dawladdu hesho in diiwaan gelin waarta la helo adduunku waxa ay wadamada horumaray xagga dhaqaaluhu cashuur bixiyaashoodu way u suntan yihiin wana calaamadsan yihiin waxaanu markii ugu horeysay aynu dhaqan gelinay labadii sano ugu dambeeyay inaan cashuur bixiyaasheenu ay yeeshaan sumad iyo calaamad permanent ah oo waarta oo aan runtii lumi doonin cashuur bixiyuhuna aanu lumi doonin amba aanu inaga qarsoomi doonin isla markaana la doonayo xuquuq iyo waajibaad wixii uu lahaa inuu isna dawladda ka helo sidaa darteed waxaanu maraynaa ilaa 16,000 oo cashuur bixiye inaanu siino sumadda aqoonsiga ee loo yaqaano tax identification number taasoo runtii tilmaamaysa inaanu horumar fiican aanu ka sameynayno 16,000 ee cashuur bixiyana ay xaasil yihiin labada dhinacba xagga dawladdana ay noqonayaan cashuur bixiyaal sharfan oo dawladdu isku halayn karto xaggoodana ay helayaan xuquuq iyo waajibaad wixii ay dawladda ku lahaayeen intaas waa qodob aan wadno waxa kale oo aanu sii wadnaa si dakhligu u waaro sahanka guud ee guryaha dadweynuhu ay leeyihiin ee kiro jooga ah ee ganacsiga ah taasoo runtii imika aanu tira ahaan aanu sii marinayno halkii markii hore ka ahaan jirtay 2 sano ka hor amba sanad ka hor
8,000 oo guri oo cashuur laga qaado iminka waxaanu sahanka yagu u socdaa amba aanu diiwaan gelinay oonu salbalaarinta cashuurta ku keenay ilaa 45,000 oo guri oo kira u joog ah oo dawladdu ay cashuurta kirada ku leedahay oo iskugu jira kira iyo ganacsiba inaanu wasaarad ahaan aanu diiwaan gelino taasoo runtii iyaduna ah guul kale oo dawladda u soo hoyatay oo ay ku ogaanayso samafalka iyo cadaalad samaynta cashuur bixiyaasha taasina waxaanu filaynaa inay dhaqaalaha iyo dakhliga dawladda ay kor u qaadi doonto runtii wax weyn ay ka tari doonto dawladdu inay baahiyaha sanadaadka soo socda ay fulin karto hadday tahay mashaariic iyo hadday tahay adeegyaba waxaanu markaanu cashuur bixiyaashii aqoonsigoodii sidaa u fariisinay waxa sidoo kale aanu horumar ka samaynay oo aanu ku jirnaa inaanu habraaca loo maamulo cashuuraha aanu casriyeyno kastamada iyo cashuuraha berigu waa meelaha ugu badan ee uu ka soo xaroodo dakhliga ugu badan ee wasaaraddu maamulaha kastamka berbera Axmed Maxamed Habane ayaa sharaxaya shaqada kastamka iyo dakhliga ay soo xareeyaan kastamka berberi waxa weeyaan waa hooyada Somaliland kastamka ugu weyn Somaliland adeegyada aan qabanaana waxa weeyaan cashuurta waxa soo daga iyo cashuurta waxa baxaya iyo cashuurta transitka iyo transhippingka iyo cashuurta re-exportka intaas cashuurood ayaanu ku qabanaa kastamka alxamdulillah shaqadan waxay noogu socotaa si aad u wanaagsan si fiican maalinba marxalad bi taagan tahay shaqadu marxaladda maanta ay taagan tahay iyo tii aynu ku soo bilownay 1991kii farqiga u dhaxeeya cid walba way og tahay alxamdulillah alxamdu inta aan joogay anigu oo ah muddo sanad iyo ayaamo ah waxa noo qabsoomay oo noo suurta galay in aan nidaamka customka wax weyn aanu ka bedelno sida manifesto oo kale oo ku shaqeyn jiray habka manualka aanu ka dhigno hab automatic habka maxaa transitka oo isna ahaan jiray manual isna aanu ka dhigno system free duty-ka oo isna sidoo kale ahaan jiray maxaa ahayd warqado ku soo bixi jiray manual isna sidoo kale aanu ka dhigno system exportka sidoo kale isna system aan ka dhignay transshipment-ka re-exportka dhammaantood waxaanu ka dhignay hub system mar wal oo system loo guuro oo manual loo guurana shaqada ka shaq ahaan way fududaataa ka documenti ahaana waxay noqotaa wax maalinta allaala maalintaad u baahatid documentiga noocaas isla markaa click ka xigto oo soo saarin kartid sidoo kale waxaa noo qabsoomay in gawaarida soo galaysa customka ee qaadaysa rarka oo kale oo berigi hore booming ka dhigi jirtay inay shaqada inaan iyakana u sameeyno system ay ku soo galaan booking ku soo galaan markuu interview dhamaado ay ku soo galaan maxaa hayde booking dabeetana ay iyakuna saaqo baxaan halkii awal ahaan jirtay gaariga oo imika shaqadiisii la bilaabayo in uu xanibo gaari shaqadiisii diyaar u tahay dabeetana gaariga markuu shaqadiisu ay dhamaato ayuu soo galaa rarkana dabeetana saaqo qaada saaqo baxaa dakhliga maalinlaha ee noo qorshaysan maalintii waxa weeyaan 3 billion weeyaan badanka laakiin bishan ina dhaafta iyo bilihii hore falilah alxamdu waxa ilaahay loogu mahadnaqaa oo aan xoog iyo xeelad aan midna aan ku keenin dakhligu wuxuu ka sareeyaa maalin walba intiina loogu talagalay 70% 50% maalin walba ka sareeyaa maalinta ugu hooseeyo wuxuu ka sareeyaa dakhliga intii oo daraska miisaaniyadda loogu talagalay 35% buu ka sareeyaa maalin walba geesta kale maamulaha laanta hubinta kastamka berbera Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ayaa isaguna ka hadlay shaqada ay hayaan laanta hubinta kastamka berbera waxa weeye hubinta iyo ilaalinta badeecadaha kala duwan ee lagu soo cashuuray kastamka weyn marka halkan waxa weeye waxaanu ku jeegaraynaa badeecadahaas lagu soo cashuuray kastamka weyn muddadaan joognay waxa weeye sanadkaana waxaanu qabanay dakhli guud oo ah markaa 3 bilyan 4 bilyan iyo 200 marka laanta hubintu waxa ka shaqeeya guud ahaan
shaqaale dhan 330 kuwaasoo kala ah baadhayo iyo saraakiil. sidoo kale in la socono waxa weeye laanta hubintu waxay shaqaysaa 3 shifti oo kala duwan. waxa weeye kastamka laanta hubinta ee checking-ka kastamka hore waxa lagu soo cashuuraa ayaan bartan ku sheegaranaa. waxaan u wakiilnaa saraakiil iyo kalkaaliyoshooda iyo sarkaal ka socota bataariyada. guud ahaan kan waxa weeye intii ka soo baxay kastamka weyn intigaas markuu lacagta la shubay oo kastamka weyn ka soo dhamaado u bartan imaado wixii imaada laanta hubinta kastamka bedela markaas uu gacanteeda soo galanaga kadib waxaanu sheegaraynaa detailska iyo alaabta ku qoran intigaas iyo badeecada taalla container markaan gudagalo shaqada iskaga gudagalaan aanu checking-kayga bilaabano ilaa 30 minutes 40 minutes baan ugu qaataa check alaabta mystery items kale inaanu sheegarayno marka wixii dheeraada ayaan dakoosho ma u jarnaa wixii ganacsado hadii wax la saaro uu yeeshana oo foqoshokiisa una cadeynaa guud ahaan shaqo si fiican bay u socotaa iyadoo ay kastamada dalku ay badan yihiin oo ay ku yaalaan gobolada iyo degmooyinka intooda badan kala baydh waa kastamka labaad ee dalka waxaana lagu cashuuraa jaadka ugu badan iyo badeecado kale maamulka xigeenka kastamka kala baydh Cumar Maxamed Shirwa ayaa isaguna inoo faahfaahinaya sida uu shaqeeyo kastamku. kastamkan waxa lagu cashuuraa inta badan 90% ama 99% waa qaadka weyn qaadka Itoobiya naga soo gala marka de process buu maraayo marka gaarigu wajaale ka soo galo qaadka ee halkan yimaado waxa uu sitaa warqad manifest leedah oo koobasa gaariga numberkiisa iyo baagiska uu sido iyo magaca shirkadda qaad kale kadib markuu halkan yimaado inamada halka barxadda ayaa manifestka ka qaada kaas ayaa lagu jeegarayaa oo lagu miisaamaa qaadkii uu siday haday isla kaadaan oo kadib kalena de gaariga waa la ganaxa kadib qiimeynta ayaa loo soo gudbiyaa qiimeyntaasi value-gii qaadku lahaay cashuurta ay saaraan saas ayaa daatada computerka loo soo gudbiyaa saas ayaa intriga marka dambe loo geliyaa halkaas kadibna khasnada ay loo gudbiyaayo inta lacagta lagu shuba marka waxa jira xafiis kale oo maraan oo manifestka isna la dhaay lagu fayl gareeyo oo isku hubiyaan qaabkaas marka inta badan marka laga yimaado cashuur qabashada waxa kale ka shaqeynaa waxa weeye waxa la trade facilitation oo qofkan cashuur bixiyaha waqtiga uu meesha joogay ay cashuurta ku qaadanayso ayaan mar walba isku daynaa qaabka ugu fudud ee qofka cashuur bixiyay waqtigiisii lagu minimize gareyn karo oo kasamka ka bixi lahaay oo cashuurta ku bixi lahaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Muuse Ibrahim Yuusuf ayaa waxa uu ka warramay xiriirka ka dhaxeeya wasaaradda maaliyadda iyo cashuur bixiyayaasha. wasaaradda horumarinta maaliyadda saa ka warqabtaan de 30 sano Soomaaliland wixii iska bedelayeen baa iska bedelay runtii waxa kamid tahay in hay'adaha dawliga ah ee laga soo bilaabay halka ugu hooseysa runtii maantana maraya meel aad iyo aad u fiican wasaaradda horumarinta maaliyadda guud ahaan qaranka waxay u xil saaran tahay shaqooyin culus bay u qabataa laf dhabar bay u tahay runtii waa halka ugu jiro maxaan ku dhahdaa jirka bini'aadamka halka wadnuhu ugu jiro ay runtii ugu jirtaa oo haddaanay wasaaraddu jiri lahayn runtii waxaa kala socda hawl iyo waxaa arrimo kala socda runtii may socoteen saa ka warqabtaan wasaaraddu guud ahaan qaranku mandate buu siiyay dastuurku mandate buu siiyay awoodo xeerarna way ku shaqaysaa dhowr xeer oo ay ugu waaweyn yihiin 5 xeer ee la yiraahdo maamulka maaliyadda ama BFM Acts-ka oo runtii ilaa 5 xeer ah runtii soo saarista dakhligu waa shaqo aad iyo aad u adag bini'aadamku waxa ugu adag la weydiiyo horta waa dhaqaale iyo lacag iyo runtii la jecelo waa arrin aad iyo aad u adag laakiin waxay noo sahlayaa dal jiro dhisan oo sharciyadeedii iyo shuruucdeedii iyo maxaan ku rahdaa dhismaheedii u dhameystirayay bay nahay sida ugu weynay horta aanu annagii shacabku ku wada shaqeynaa waa xeerarka dalka yaal ay kamid tahay xeerka dakhliga xeerka kastamada maxaan ku rahdaa isha xeerka guud ee maamulka maaliyadda maxaan ku rahdaa wax kale oo kamid ah iyagana xeerka hanti dhowraha guud iyo oo waxa soo daba socda maamulka maaliyadda cashuur bixiyaashu sida dadku tirada xooluhu u diiwaan gashan bay ugu diiwaan gashan yihiin cid kasta oo maxaan ku rahdaa isheeg cashuur ku waajibtay de waa shaqaalaha cashuuraha bariga runtii way ka hawl galaan waana ogyihiin technicalina shaqada waxa qabtaa staffka iyo xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda maaliyadda annaga roolkayagu waa dabagal marka hore waan u qorsheynaa marka la isla qaato daraska dakhli
ee meel walba lagu qoro ee loo qoondeeyo goob kasta ama cashuuro berri ha ahaato ama kastama ha ahaato shaqada ugu weyn ee qabana waxa weeye inaanu ku dabagalno si dakhligaasi soo bixilaa una kormeerno sidii maaragtay dakhliga lagu qoray loo qoondeeyey sida ugu maaragtay macquulsan ee ugu weliba aan isku dayno inaanu ka badino intii la xadiday ama la qoondeeyey in ka badan mar walba aan soo saarno. Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa ka warramay waxqabadka wasaaradda maaliyaddu muddooyinkii u dambeeyay ku tallaabsatay. waxyaabahan ku soo daray way fara badan yihiin runtii hadday tahay dhisme iyo hadday tahay agab iyo hadday tahay shaqaalaha imika waxa weeye waa 1800 anigu waxaan uga yimi 1530 meelahaasay ahaayeen marka dee loo eeg halkaynu ka nimi aad buu shaqaalaha aynu kordhin weliba waa shaqaale dhalinyaro oo runtii xirfad leh shaqaalaha markaanu qaadano sidaas kuma hawlgelina waan tababaraa marka shaqaalaha maanta aan haysano runtii waa shaqaale tababaran weyn oo dee sidii berigii hore maaha waxaanu ku soo kordhinay oo kale waa ballaarinay wasaaradda waaxyaanu ku soo kordhinay waxaa ka mid ah waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaa ka mid ah waaxda iibka kuwa kale waxaan ku daray qaybaan ku daray units baan ku daray amba qaybaan ku daray amba unugiyaan ku daray waa sal ballaarinay wasaaradda. agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda maxamed cabdi gurxan ayaa waxa uu ka warramayaa hanaanka casriga ah iyo habraacyada caalamiga ah ee wasaaraddu ku shaqayso. qodobka labaad ee aanu shilinka cashuur bixiyaha ku ilaalinay waqtiga iyo dhaqaalihiisa ku ilaalinay waxaa ka mid ah inaanu cashuur bixiyaha u suurto gelinay inuu isaga oo halkiisa fadhiya oo meheradiisa jooga amba qaybihii xafiisyadiisii iyo ganacsigiisii shaqaysanaya inuu cashuurtii adeegyada mobile money-ga uu ku soo bixin karo isagoo isticmaalaya adeegyada saadka iyo adeegyada e-dahabka iyo adeegyada la yiraahdo e-banka amba maxayda e-cashier-ka ee banka dhexe ee dawladda adeegyada isagoo isticmaalaya inuu cashuurta halka ka soo bixin karo waa mid kale oo aanu ku ilaalinay inay cashuurtuna kor ugu kacdo shilinka iyo waqtiga ganacsaduhuna uu safe garoobo. qodobada kale ee aanu ku ilaalinay dhaqaaluhu waxa ay tahay iyo cashuur bixiyaashu inaanu dib u eegis ku sameynay qaab dhismeedka shaqo ee labada waaxood ee dakhliga annagoo runtii dib u eegis iyo dib u habeyn ku sameynay ugu yaraan 200 oo dhalinyaro aqoon-yahan ah oo shaqaale ah oo tababarkii iyo aqoontii cashuuraha lagu maamulayay lana aanu labada waaxood ee dakhliga ku kordhinay 2 sano ee u dambeeyay si kor loogu qaado nidaamka maamul wanaagga maaliyadda ee cashuuraha. waxaanu sidoo kale aanu maadaama oo wadankeenu imanka maalgashi caalamiya uu ku jiro xagga dekedaha madaarada jidadka iyo heshiisyada caalamiga waxaanu wasaarad ahaan dhamaystirnay inaanu la nimaadno xeerarka maamulka maaliyadda kuwa dakhliga kuwa kastamada ee la jaan qaadaya heshiisyada caalamiga iyo maalgashiga. qodobo badan oo aanu ku hirgelinayna waxa ka mid ah adduunku aynu la macaamilka la yeelan doonaa dhawaan goobaha kastamada iyo madaarada waxa loo baahan yahay in la isticmaalo xeerarka caalamiga ee lagu maamulo kastamada habsami u socodka ganacsiga iyo socodsiintiisu inay waafaqsanaato heshiisyada caalamiga ah. waxaanu dhaqan gelinay waxyaabo badan oo lagu fudaydinayo aaga kastamada oo loo yaqaan risk management-ka waxa ka yaabaan fudaydina waxa kamid ah in green lane-ka la yiraahdo inspection-ka iyo baarista fara badan iyadoo la isticmaalayo risk management-ka inaanu fulino waxyaabo badan oo taas waxay keentay waqtigii kastamada dekeda berbera amba madaarada inuu isaguna half noqdo oo kala badh waqtigii ay ka soo baxaysay badeecadu hoos loo celiyo. waxaan la ilaawi karin waa markii ugu horeysay ee cashuuraha laga hirgeliyo systemyada iswada ee tax administration systemska la yiraahdo oo intii Soomaaliland jirtay sidaad aragteen
waraaqa iyo beberka iyo halka beberiska iyo yani procedureku siduu ahaan jiray waxa wax weyn laga bedelay maanta oo dhammaan gobolada si fiican bishii April lagu soo gabagabeeyay oo dhaqan galay cashuure biri oo kasta oo la qabanaya ya cashuur kasta oo la maamulayaaba inay raacdo nidaamka tax administration systemka waa system automated ah oo iswada oo soo kordhinaya fudaydinta cashuur bixinta daahfurnaanta isla xisaabtanka kobcinta dhaqaalaha systemkaas ayaa isna si weyn uga howlgalay sidoo kale wasiirku waxa uu ka warramay qorshayaasha ay higsanayso wasaaradda maaliyaddu higsiga wasaaradda runtii waxa ka koowa inaynu dhaqan gelino nidaam la yiraahdo BFM amba habka maamulka maaliyadda dawladda oo runtii aan ku tallaabsanay muddo badan buu soo socday laakiin aad baan ugu dadaalnay sidii aan horumar uga gaari lahayn 3 sanadood ee soo dhaafay amba sanadkan saddexaad 2 sanadood hore sanadka intan waxaanu doonaynaa inuu guud ahaan wada dhaqan gelino systemkaas waa nidaamka maamul wanaagga caamka ah ee lagaga shaqeeyo caalamka oo dhan waxaanu doonaynaa habka aynu maaliyadeena u maamulnaa amba ha ahaado dakhligeena soo gala amba kharashka inaga baxaaday inuu ahaado mid waafaqsan heerka caalamiga ah oo takaa weeye ujeedada ugu weyn ugu horeysa kalena waxa weeye inaanu u bixino inaanu siino macmiisha anagu ganacsatada cashuurtaanu ka qaadno macmiil baanu aragnaa inaanu siino adeeg wanaagsan iyo inaanu u fududeyno si cashuurta u bixin lahaayeen iyo inaanu siino jidkii ay ku caban lahaayeen haddii cabasho ay qabaan taana waanu ku dadaalaynaa inaanu sii dhisno shaqaalaha iyaga oo tababarada halkii kasii wadno sii xoojino waanu helno marka dambe runtii niman dhalinyaro ah oo tababaran xag walbaba xag farsamo iyo xag mataqaan la dhaqan bulsho iyo macaamiilba inay noo soo baxaan waxaan doonayaa laftigeeda oo himileedu ay tahay in aynu kordhino qaybta miisaaniyadda aynu ku talagalnay horumarka imka miisaaniyaddeenu inta badan waxay ku baxdaa waa mushahar bay ku baxdaa iyo waxyaabo la yidhahdo hawl socodsiinta sida shidaalada oo kale dayactirka oo kale waxyaabo noocaas nalka oo kale biyaha oo kale laakiin waxaan doonayaa runtii mustaqbalka in aynu kordhino imka waa 13% 14% ayaa gashay mashaariicda sanadkii waxaynu maalgelinay ilaa 50 ilaa 60 mashruuc aynu maalgelinay oo isugu jira amba dhisme amba isugu jira qalab iyo maxaa la gaadiidba marka inaynu kordhino halkii 13% horumarku ka yahay gaarsiin ilaa 25 30% si marka hadii aynu u dhisano amba aynu u maalgashano kaabayaasha aynu u baahannahay iyo adeegyada aynu u baahannahay bulshada wasaaradda maaliyaddu waxa ay maraysaa wakhtigii ay ugu wanaagsanayd waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo shaqaaluhuba ay ku shaqeeyaan xeerarka iyo habraacyada caalamiga ah waxaana wasaaraddu ku guulaysatay in ay sanad kasta dejiso miisaaniyadda qaranka taasi oo lagu maamulo guud ahaan habsamo socodka howlaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland